halkani waa BBC London oo idinkaga imaanaysa mawjadaha gaagaaban ee filimyada magaalooyinka qaar telefoonka gacanta iyo internetka bbcsomali.com saacadu waa 5 galabnimo Afrikada bari kulanti wanaagsan dhamaantiinba Axmed Cabdi Nuur ayaan ahay waa Isniin 23 Abriil sanadka 2018 muqdisho waxaa ka dhacay dagaal ciidamada dawladda dhexdooda ah waxaana ka bilowday diiwaangelinta musharaxiinta jagada gudoomiyaha baarlamaanka ee dhawaan banaanaatay Yemen dad badan ayaa ku dhintay duqeyn goob aroos ka dhacday Eritrea waxaa booqanaya sarkaal sare oo Mareykan ah midowga Yurub iyo qaramada midoobay waxay qabanqaabinayaan shir gargaar loogu raadinayo malaayiin qof oo ku dhibaataysan dalka Suuriya 10 qof ba 7 qof oo ka mid ah dalka Suuriya ku nool waqtigan xaadirka lagu jiro ayaa waxay dad baahi ay hayso oo bini'aadanimo u baahan kaalmo bini'aadanimo qodobadaas iyo qaar kale oo barnaamijka ciyaaruhu ka mid yahay ayaad idaacadan ku maqli doontaan saacada soo socota maxamed Cabdi ayaa soo saaray waxaan ku bilaabaynaa wararka caalamka ee BBC-da waxaa soo jeedinaya Axmed Badar stuudiyaheena Nairobi maasanid Axmed Cabdi Nuur ra'iisul wasaarihii dalka Armenia Sargsyan ayaa xilka ka dagay oo iscasilay kadib markii dalkaasi ay ka socdeen muddo 12 maalmood oo isxiixiga dibadbaxyo looga soo horjeedo dawladda dalkaasi bayaan uu soo saaray waxa uu ku sheegay in uu ku khaldana in uu qabto xilka ra'iisul wasaaraha kadib markii uu dhameystay muddadii xilka madaxweynenimada uuna markaasi fulin doono waxyaabaha ay dalbadeen dibadbaxayaasha afayeenkiisa ayaa BBC-da u sheegay in Sargsyan uu mas'uuliyad muujiyay isla markaana ay dimuqraadiyadda ka mid tahay tilaabada uu qaaday I think his resignation is a clear demonstration of a democracy in force. waxaan u malaynayaa in iscasilaadiisa ay markhaati cad u tahay in dimuqraadiyadda ay dhaqan gashay ma aha in dibadbax weliba oo ka dhaca dunida dacaladeeda uu horseedo in xukuumadda ay iscasisho balse iyada oo dibadbaxyada ay sii ballaaranayeen ayna taageero ka helayeen bulshada ayaa waxaa ra'iisul wasaaraha xilka ka sii degaya uu go'aansaday in uu fursad siiyo jiilka cusub ee dhanka siyaasadda waxaa iscasilaadiisa ay ku soo beegmaysaa waxyar uun kadib markii xabsiga laga sii daayay hogaamiyaha mucaaradka ee dalkaasi Master Bashyan ayaa isla markiiba ku biiray dibadbaxyada ka socda wadooyinka caasimadda dalkaasi dawladda Iiraan ayaa waxay sheegtay inuusan jirin qorshe labaad oo ku saabsan in heshiiska ay la gashay quwadaha waaweyn ee caalamka lagu bedelayo kadib markii madaxweyne Trump uu ku hanjabay in heshiiskani uu ka bixi doono wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Iiraan Maxamed Javad Zarif ayaa waxa uu barta Twitterka ku soo qoray in wadamada Yurub ee heshiiska saxiixay ay madaxweyne Trump ku qanciyaan in heshiiskan uu qayb ka sii ahaado wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov ayaa waxa uu sheegay in dhigiisa Shiinaha uu ku raacsan yahay in laga hortago isku day waliba oo lagu doonayo in lagu manjaxaabiyo heshiiskaasi У нас с Китайской Народной Республикой единая позиция. Этот документ... annaga iyo Shiinaha waan ka midaysannahay nuqulkan waxa ansixiyay xubinta ugu sarreysa ee mas'uulka ka ah si ambaqaadka nabadgelyada dunida waa golaha ammaanka ee qaramada midoobay waxa la aqbali karo ma ahan in la tixgeliyo heshiisyada noocaan waxaan samayn doonaa wax kaste oo karaankeenna ah annaga iyo jamhuuriyadda dadka ee Shiinaha si aan isu hortaagno arrintan ma yeeli doono inaan ogolaano in ay sii socdaan dhacdooyin khatartooda leh противодействовать этому, чтобы не допустить подобного крайне опасного развития событий.
hay-adda u dooda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa waxay sheegtay in howlgalka ka dhanka kooxaha mintidiinta ee ciidamada Masar ay ka wadaan lamadegaanka Sinai uu sababay in 400,000 oo rayid ah ay imika u baahan yihiin gargaar bini'aadanimo oo degdeg ah. In ka badan muddo 2 bilood ah ayaa waxaa goobtaasi lagu soo rogay xanibaad dhanka dhaqdhaqaaqa dadka iyo badeecooyinka. Dadka deegaanka ayaa waxay sheegeen inay haysato gabaabsi dhanka cunnada, dawooyinka, gaaska iyo waxyaabaha kale ee nolosha asaasiga ah. Human Rights Watch ayaa waxay sheegtay in waxa ka dhacaya xuduudaasi ay yihiin ciqaab wadareed. ninka kaliya ka badbaaday dadkii looga shakisanaa weerarkii 2015 ka dhacay magaalada Paris, Saalax Cabdisalaam ayaa waxaa lagu helay dambiga isku day dil xilli uu doonayay inuu ka maagto in lagu qabto dalka Belgiumka. waxaa lagu xukumay 20 sano oo xariga. Cabdisalaam ayaa diiday inuu ka qayb galo dhageysiga maxkamadda. waxa uu imika ku jira xabsi ku yaala dalka Faransiiska, halkaasi oo ku sugayo dacwado la xiriira doorkii uu ka qaatay weeraradaasi ka dhacay magaalada Paris. duqeyn ka dhacday waqooyiga dalka Yemen ayaa waxaa la sheegay inay ku dhinteen ugu yaraan 20 qof oo ka qayb galaya xaflad aroos. weerarka ayaa waxaa sidoo kale ku dhaawacmay 30 qof oo kale. mucaaradka Xuutiyiinta ayaa ku eedeeyay mas'uuliyadda weerarkan isbahaysiga Sacuudiga oo hogaamiyo ee taageera dowladda Yemen. afayeen u hadlay isbahaysiga ayaa dhankooda sheegay in dhacdadani ay si buuxda u baari doonaan. dagaalka Yemen ayaa socday muddo 3 sano ah, waxaana la sheegay inay ku dhinteen in ka badan 10,000 oo qof. ugu dambeyn, wiil cusub ayaa ku soo biiray qoyska boqortooyada Ingiriiska, waxaana wiilkani dhashay xaaska amiir kale dhaxaltooyada ee Amir William. gabadha lagu magacaabo Catherine ayaa waxa ay isbitaalka loo qaaday xilli hore saakay, waxaana kama dambaysta dhashay wiil kaasi oo noqonaya kan shanaad ee leh dhaxaltooyada. war qoraal oo ka soo baxay qasriga boqortooyada ayaa lagu sheegay in wiilka iyo hooyadiisaba caafimaadkoodu uu wanaagsan yahay. ra'iisul wasaaraha Britain ayaa hambalyo u dirtay qoyska. warkii oo idinkaga imanaya stuudiyaha BBC ee Nairobi ayaa intaasi naga dhana. dib aan idinku celiyo Axmed Cabdinuur. mahadsanid Sami. halkani waa London. aan ku bilaabo magaalada Muqdisho. dhowr qof ayaa ku dhintay, qaar kalena way ku dhaawacmeen dagaal dhex maray ciidamo la sheegay inay ka wada tirsan yihiin kuwa dowladda dhexe. wariyahayaga Ibraahim Maxamed Aadan ayaa haatan qadka toos ugu jira. Ibraahim, faahfaahintana sii. axmed, iskoorimaadkani wuxuu ka dhacay xerada General Gordon ee ay maamuli jireen tababarayaasha Imaaraadka oo toddobaadkii hore isaga baxay magaalada Muqdisho. ciidamada ka wada tirsan dowladda gaar ahaan militariga ayaana xerada gudaheeda ku dagaalamay. wararka ay BBC-du helaysa waxay sheegayaan in ciidanku ay dagaalameen kadib markii ay ku murmeen kala bixid agab ciidan iyo saanad military oo ku xaraysneyd keedka ciidanka. halkaas waxaa ka bilowday rasaas culus oo ay labada dhinac iswadaarsanayeen. xaafadaha ku xeeran saldhigga oo dhan daqiiqado badan waxaa laga maqlayay hubka labada dhinac ay isku ridayeen. taliyaha militariga Soomaaliya General Cabdiweli Jaamac Gorod oo la hadlayay wakaalada u faafisa wararka dowladda ayaa sheegay in la soo xiray ciidamo iyo saraakiil uu sheegay inay ku lug lahaayeen in ay saanad iyo agab ciidanba kala baxayeen xerada. wuxuu sheegay in ciidanka xoogga dalka oo ay hadda gacanta ku hayaan askartii iyo saraakiishii ka dambeysay buu yiri dhacdadan. inkastoo ay tiro ahaan aad u yar yihiin, haddana waa mid aan marnaba la qaadan karin buu yiri. waxaan ballan qaadaynaa inaan horkeenno sharciga. dad kala duwan ama ilo kala duwan oo xerada ku dhowdhow waxay BBC-da u sheegeen in ugu yaraantii 3 askari ay ku dhinteen iskoorimaadkaasi, 8 kalena ay ku dhaawacmeen. sidoo kale ciidanku waxaa la sheegay inay ku daba jiraan askar qoryo fudud kala baxday xerada oo magaalada meelo kala duwan la aaday. Axmed, marka si kale haddii loo dhigo, xerada in la bilileqaystaa la rabay ma la dhihi karaa? tan iyo markii Imaaraadku ay baneeyeen xeradaasi toddobaadkan waxaa isaga soo daba laalaabanayay saraakiisha sare ee militariga gaar ahaan abaanduulaha ciidanka militariga ee Soomaaliya General Caanood. waxaa loo sheegay ciidanka halkaasi degan inay yihiin guuto ka tirsan militariga oo la yiraahdo Daljir. waxaa loo sheegay in sidooda iyo hubkooduba ay sidaa xerada ku deganaanayaan, laakiin shalay ilaa dorad waxay soo baxaysa in xerada tasiilaadkii ama adeegyadii ay lahayd ay ku yimaadeen gaabi sida biyaha iyo korontada
oo markii hore ay imaaraadku maamuli jireen waxaa joogay shaqaale badan oo cunto kariyayaala oo afrikada meelo kala duwan ka yimid dhammaantood wadanka waa laga saaray marka waxaa imaanaysa adeeg yari taasi waxay keentay in askarta qaarkood ay mararka qaarkood ku fakaraanba in agabka military ama saanada military ee keydka halkaasi yaalla inay la baxaan taasina waxay keentay in markii dambe ay dhexdooda isku khilaafaan aakhirkiina ay keentay in iskahorimaadkani dhaco isla markaana taliyaha militarigu uu qiro in iskahorimaadkaasi uu xerada ka dhacay isla markaana ay jiraan askar iyo saraakiil loo xiray in ay agab iyo saanad militariba meeshaasi kala baxayeen Axmed marka taliyuhu ma sheegay cidda mas'uul ka ahaanaysa hadda kadib ilaalinta agabka iyo hantida meeshaas taalla taliyuhu wuxuu la hadlayay wakaalada wararka ee dowladda u faafisa faahfaahinta ka badan oo dagaalka ah ma aanu bixin laakiin labadii maalmood ama dhowrkii maalmood ee ugu dambeysay markuu abaanduuluhu xerada ku laalaabanayay wuxuu sheegay ammaanka inay guutadu madax ka tahay guutadii halkaasi deganayd guutadu waxay isugu jirtay ciidan special forces la yiraahdo ama howlaha gaarka ah qabta iyo ciidan commandos iyo sidoo kale ciidan kale oo infantry marka wuxuu sheegay in agabkooda iyo qalabkooda iyo dresskooduba ay sidaasi xerada ku deganaanayaan oo iyagu ay mas'uul ka yihiin laakiin socod kale oo xerada yimid saaka iyo ayaa wuxuu keenay inay xoogaa ay ishiifaan ciidanku taasina ay keento in qaarkood ay ku fikiraan inay hubkaasi kala baxaan xerada taasina ay keento in dagaal halkaasi ka dhaco oo israsaasiintaasi dadka xaafadaha degan ay maanta oo dhan maqlayeen oo qaarkoodba wararka aan helaya ay jirteen dad shacab ay wax ku noqdeen Axmed aad iyo aad u mahadsantahay Ibraahim mar dhow ayaan kugu soo noqon doonaa waxaan kale u baahannahay tartanka gudoomiyaha baarlamaanka maanta muqdisho ka bilowday marka qadka iigu jir laakiin haatan tan iyo markii uu soo baxay khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya dowladda Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta waxaa jiray hadallo kulul oo iyo weliba isdhaleecayn oo baraha bulshada ay isku dhaafsanayeen dad Soomaali ah iyo kuwo Carabta ka tirsan gaar ahaan Imaaraadka qaar ka mid ah hadallada ugu dambeeyay oo barta Twitter la isku weydaarsaday waxaa soo akhriday Bushra Nuur Maxamed Cumar Maxamed oo Twitterka ku soo qoray fariin ku aadan khilaafka Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta ayaa yiri maxay taariikhdu u xusi laadahay in Soomaaliya ay kaalmo heli jirtay ka hor burburkii 1991 ayna caawin jirtay dalalka muslimka ah ee ay walaalaha yihiin ka hor inta aanu qaliijka soo saarin shidaalkiisa waxaa la yaab leh buu yiri in qaliijka uu qaab ganacsi ahaan u bixinayo gargaarka uu siiyo Soomaaliya Sacuudi Waaqici ayaa barta Twitterkaasna inoogu soo qoray Soomaaliya oo madax banaani leh waa wax aan dhammaanteen doonayno balse danaha dhaqaale ee uu madaxweynaha Turkiga Erdogan ka leeyahay dalkaasi kama dhigna in Soomaaliya ay sidii eygii u noqoto Turkiga oo cidii la doono lagu soo diro u dagaalama madax banaanideena ka hor intaadan u dagaalamin midnimadeena xagaag ayaa isna Twitterka ku qoray in Imaaraadku waxa uu jarayaa gargaarka bini'aadanimo si uu u ciqaabo dowladda Soomaaliya go'aanka lagu xirayo cisbitaalka Muqdisho ayaa muujinaya buu yiri in aanay jirin wax bilaash ah oo marka laga hadlayo xiriirka caalamiga ah ee waxa joogtada ah ay tahay danta loona marayo qaab kasta oo lagu gaari karo الأمير نين مقعيسو كسو قابيه يا اسنا قري ولا لهيغ إمارات كو صوماليا وادل مدح بنان وانا او أهان دونا هدي أي مدح دينا موديان إن شرفتين كبربرين كران دراهيم تاسي إدي مسورة قليسو هدي أدونيسان إن أدوح كبرتان تاريخ دا صوماليا كعو أخرستا بوغاكتا تاريخ دا hagaag magaalada Muqdisho ayaan dib ugu noqonayaa waxaa maanta halkaas ka bilowday diiwaangelinta musharaxiinta u tartamaya xilka gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka kadib markii uu iscasilay gudoomiyihii hore Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari wariyaha BBC-da Ibraahim Maxamed Aadan ayaa sida aad maqlayseen qadka haatan toos ugu jira Ibraahim sidee wax u socdaan أحمد جودجا استيوانجلينتا جودجا دورشوين كبرلمانكا سوماليا جارهان كلها الشعب كوحو ساكي حفيزكي سفري تبنكي أرورنمو وحنا لصوحري شنتي كرونمو مركان إذا عدا سوق ليني بريتو مركلا أي دبلو فوريدونا تبنك أرورنمو إلا جلني كدم بشنت مركزو مرشحة قدام بيا إنه سوق بيو
arjigiisa murashaxnimo ee gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka deetana khamiista iyo arbacada waxaa la siin doonaa murashaxiinta soo buuxiyay shuruudaha guddigu u dhigay in ay hadal jeedin ka hor sameeyaan golaha oo ka kooban 276 xildhibaan deetana maalinta isniinta ah ee 30 bisha ayaa cod lagu kala saari doonaa oo cod qarsoodi ah ayay ku kala bixi doonaan marka hawshu si wanaagsan ayay u socotaa hadaaye mar aan la hadlay gudoomiyaha guddiga doorashada xildhibaan nuur iido peyle wuxuu sheegay in hawshu ay si wanaagsan u socoto islamarkaana ay filayaan ilaa berrito inay soo dhammaystiranto isdiiwaangelinta murashaxiinta u tartamaysa xilka gudoomiyaha shuruudahaas marka lagu xiray wax ma ka ognahay axmed shuruuduhu way cad yihiin hal shuruud baa dadku aad uga wada hadlayeen shalay ilaa maanta baraha bulshada doodo xagga sharciga ahna dhalisay guddiga doorashadu waxay sheegeen in qofkii xil wasiir haya ay tahay inuu ku soo daro markuu arjiga soo gudbinayo warqadiisa istiqaaladda taasoo dadka qaarkii ay yiraahdeen sharci ma ah xitaa wasiirka dastuurka oo bartiisa Facebook ku qoray inay arrintaasi sharci ahayn laakiin guddigu wuxuu ku adkaysteen in arrintaasi qasab tahay durbanaa maanta waxaa is asilay laba wasiir oo ka tirsan xukuumadda ra'iisul wasaare Khayre oo doonaya inay xilkaasi u tartamaan laba kale ayaa jirto iyana hore u sheegay inay xilkan u tartami doonaan oo wasiirro waaweyn ka haya dawladda laakiin ilaa hadda istiqaaladoodii ma hayno laakiin shuruudaha ugu adag oo dadka qaarkii aad uga hadlayeen in qofku ku qamaarayo xil uu hayay inuu haddana xil kale ku raadsado sidoo kale waxaa jirta in lacag banka dhexe accountka sidii tii horeba loo dhigi jiray loo dhigayo marka shuruuduhu waxaa uga adagtaa ah in qofku ka soo tago shaqadii wasiirnimo ee markii hore uu hayay iyadoo xiisaha xilkan ay dhowr wasiir aad u danaynayaan inay qabtaan aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay ibraahim maxamed aadan weriyahayaga magaalada muqdisho ayuu ahaa haddaba su-aashu waxay tahay maxaa sababay in wasiiro dowladda ka tirsan ay shaqadooda uga soo ruqsaystaan si ay jagadan u doontaan waxaa istuudiyaha ila jooga maxamed nuur qalimow oo arrimaha siyaasadda ee soomaaliya aad ula socda maxay kula tahay qalimow asalaamu calaykum marka hore waxaan salaamaya dadweynahana dheegsanaya waxaan u mahad celinaya b b c da maanta uga casuuntay inaan barnaamijkan kala qayb qaato run ahaantii dad badan baa danaynaya inay noqdaan gudoomiyaha baarlamaanka ee soomaaliya walow ilaahay mahadiisu ay tahay in mashaakilkii ugu badnaayay horena soo maray inuu ilaahay naga yareeyey maanta aan siyaasadii qasnayd ay ka yaraatay sidii hore laakiin waxaan jecelahay in sida ugu dhaqsi badan in loo dhameeyo doorashada gudoomiyaha baarlamaanka haddii aan usoo noqo su-aasha ah maxaa nimanka wasiirada ay uga soo tegayaan shaqadooda run ahaantii waa jago ka weyntan ay hadda hayaan laakiin waxaad moodaa haddii mar loo sheegay shalay inay shaqada ka soo tagaan ilaa haddase aynan ka soo tegin marka horeba inaynan serious ka ahayn ama dhab aynan ahayn inay shaqada ka soo tagaan laakiin iska shaafalatees haddaad heli karta ay tahay laakiin haddii aad doonayso waddankaaga inaad ugu shaqayso jago ka sarraysatan markaad aad hayso oo aad jagada labaad hadduu madaxweynaha dalka ka baxaa tahay madaxweynihii dalka wax walba ay gacanta ku hayaan ka weyn hadday ilaa muddada uga soo tegi waayeen waxay la tahay inayna ahayn niman serious ah mideeda kale nimanka aan filayno weli inayna iscasirin waa nimanka loo tirinayo inay dowladdu wadato especially prime ministerka iyo madaxweynaha iyo Sharif Xasan marka nimankaasi la wato oo especially ninkan wasiirka difaaca Mursal waa ninka lisleeyahay dowladda ayaa wadata marka waxaan dhihi lahaa dadka la wato maxay faa'iido u leeyihiin shacabka iyo inay noqdaan speakerka baarlamaanka waddanka maxay si khasaaro u leedahay dadka la wato sida badan waxay hadhowto baarlamaanka ama qaranka Soomaaliyeed go'aanka loo qaadayo waxa laga yaabaa inay mid khalad qaataan iyagoo markaa xiirinaya saaxiibtinimada xiriirka kala dhaxeeya xafiiska madaxweynaha iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha marka waxaan dhihi lahaa anigoo xushmeynaya xildhibaanada Soomaaliyeed inay inoo dooraan shakhsi aanan lagu soo dooran madaxweynaha uu loobin gareeyey ama ra'iisul wasaaraha ama dadkaasaa wata ay noo soo dooraan qof well qualified waa shaqadan daacadna u ah isla markaasna fikirkiisu uunan ahayn sida uu hebel yiriyo kale laakiin qof isku filan soo maray management CVgiisa uu fiican yahay laakiin aanan ahayn nin si 100% ugu xiran xafiisyada dawladda aan toonsanna laakiin ma la ogyahay hadda si cad miyaa loo ogyahay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaare iyo qof inay wataan iyo dad u ololeynayaan inay meesha qabtaan inay jiraan waa iska tuhul munsoma axmed laakiin siyaasadda Soomaaliya wax qarsooda ma jira xafiiska madaxweynaha maanta shaqada warqada laga soo qoray waxa laga yaabaa in magaalada lagu ogaado Soomaaliya dad qarsoodi leba ma aha marka inay Mursal wataan oo ay waliba saddexdooda Sharif Xasan iyo prime minister iyo madaxweynaha ay Mursal wataan
cidna kama qarsana isagana waxaa kala weyn waayo haddii ay tahay wax isagu ka soo go'ay mar hore intuu iska casilo ayuu dhihi lahaa shaqadan ayaan doonaya inaan qabto dalkayga meesha hadda aan joogo meel ka saraysa aan ugu shaqeeyo laakiin waxaad moodaa in lagu soo qanciyey shaqadan ka tag halkaa qabo qofkaasoo kale marka uu ka labalabaynaa inuu shaqadiisa hore sii daayo waayo tiisa hore ayuu ku faraxsanya inuu sii joogo laakiin nimanka marka la jooga ka darajo ahaanna ka sarreeya ayaa waxay ku qancinayaan marka inuu meesha tago saddexdooduna way isku waafaqsiin waxaan leeyahay aan kaa dhex galo marka jagadan kulley waxaa iskala beel sida meesha ay ku dhisan tahay marka nin kastoo beeshaasa muxuu uga duwan yahay midka kale wuxuu uga duwan yahay qaarna isku fikir bay yihiin xafiisyada waaweyn nalooga taliyo prime ministerka iyo madaxweynaha iyo Shariif Xasan oo nin aad maar siyaasadda Soomaaliya ugu lug leh deegaanka isagu madaxda ka yahayna ay yihiin dadka ka imaanaya dadka noqon kara speaker of parliament oo ama afhayeenka baarlamaanka marka saameyn xoog leh ku leeyahay marka saddexdooduna waa qofka kaliya ilaa siyaasadda Soomaaliya waxba nagama qarsana ninka ay isku raacsan yihiin inuu noqdo kaas ay u badan tahay laakiin maxaa faa'iido noogu jira khilaafka badan meesha marka hadayba saddexdoodu qof isku raacaan waaba fiican tahay Soomaa laakiin maxaa faa'iido daraa oo ka imaan karan waa la isweydiin karaa oo ah wax alla wixii baarlamaankaas ay keenaan xafiisyadaasi warqadaha ka socda ama mooshanada ama waxyaabaha la rabo inuu dalka loo qaado go'aan masiiri oo kale ilaan isagoo xiirinaya marka hore inuu yahay nin loo loobin kareeyay meesha la keensaday maadaama uu yahay isna uu saaxiibo ku yeelan doono baarlamaanka inuu dalkaba loo qaado go'aan aan sax ku ahayn xaaladda aan ku jirno oo dagaalkan xarbul ahliga iyo marka waxaan rabaa qof isku filan self confidence qaba CV-giisuna dhisan yahay management soo maray maamul weyn soo maray laakiin qof la wato isla markaasna maamul weyn oo aad ugu yaraan 1,000 qofood oo kale aan weligii madax u noqon waxaad moodaa in hadhowti inuu ku feelgaroobi karo jagadanna waa jaga weyn oo qaranka Soomaaliyeed waa xubinta labaad hadduu madaxweynaha si uu noqdo ama uu dalka ka baxo waa ninka madaxweynaha dalka noqon lahaa marka inuunan noqonin shakhsi la iska keenay rabitaankiisa aan ku imaan oo hadduu rabitaankiisa yahay daqiiqada ugu horreysay warqadda loo geeyay la yiri waa inaad shaqada warqadda casilaada soo raacisa application-kaaga ayuu tus casilu tagi lahaa mideeda kale isagay ka imaan lahayd rabitaanka laakiin hadda waxaad moodaa in lagu qancinaya inuu jagadaa qabto tanna ka tago marka labalabaynta taasaa keenaysa marka xildhibaanadan ku kalsoonahay inay noo keenaan shakhsi isku filan aan la wadan aqoontiisna ay nagu soo saaraan well qualified for the job shaqadan aad ugu maaragtay ugu habboon waa jaga muhiima adinkaan idinku kalsoonahay waa mahadsantahay doorashaduna waa qarsoodi ana xisaabta ku darsan saasaa la sheegayba waa maqlaysa wariyaheenna waa hagaag ninka keliya ka nool dadka lagu tuhunsan yahay weerarkii islaamiyiinta sanadkii 2015 magaalada Paris lagu qaaday Saalax Cabdisalaam ayaa lagu helay isku day dil mar rasaas la isku weydaarsaday dalka Belgium 2 sano ka hor 3 ciidan booliis ah ayaa ku dhaawacmay israsaasaynta sanadkii 2016 iyadoo booliisku ay isku dayeen inay soo xiraan Cabdisalaam oo waqtigaas ahaa ninka Yurub loogu raadinta badan yahay isagoo ku dhuumanayay meel ka baxsan magaalada Brussels maxkamadda Brussels waxay kaloo xukun ku riday nin isku dambi loo haystay oo la yiraahdo Sufyaan Ayaari wararka xukunadan waxaa la socday Mawlid Xaaji Cabdi oo haatan studio la fadhiya Mawlid Saalax Cabdisalaam waxaa la xukumay maanta isagoo maxkamadda ka maqan isaga iyo nin kale oo la yiraahdo Sufyaan Ayaari waxaa la sheegay in labada nin ay ku xiran yihiin waddankaasi Faransiiska gudihiisa Saalax Cabdisalaam waxaa la sheegaa inuu isagu ahaa maskaxdii ka dambeysay weerarkii 2015 ka dhacay magaalada Paris bishii November 13 kaasi oo lagu qaaday goobo markaasi ay ka socdeen riwaayado stadium ciyaaraha maqaayado iyo waliba baarar halkaasi oo ay ku dhinteen ilaa iyo 130 qof in ka badan 100 qofna ay ku dhaawacmeen waxay booliisku leeyihiin arrimahaasi wuxuu ahaa ninkii ka qayb qaatay gaar ahaan kareenta baabuurka iyo arrimihii kale la xiriiray in uu maleegay arrimahaasi oo isku soo ururshay maxkamadda maanta waxay labada ninba ay diideen in ay tagaan micnaheeda waxay tahay kiiskan maantay nimankan lagu xukumay axmedow waxa weeye waa markii nimankan ay ka soo baxsadeen magaalada Paris gaar ahaan Saalax Cabdisalaam
oo yimid magaalada Brussels ayaa booliiska Belgium ay damceen 4 bil kadib weerarka markuu dhacay inay ka soo qabtaan guri ku yaala magaalada Brussels laakiin halkaas israsaasin baa ka dhacday laba booliiska ka tirsan iyo qof rayida ayaa si xun meesha ugu dhaawacmay marka dacwadan maanta nimanka lagu soo ogay waa dhaawacii iyo khasaarihii soo gaaray booliiska ee ka dhacay magaalada Brussels arrintii kale ee gaarka ahayd iyo weerarka dhacay 2015 weerarkii magaalada Paris arrintaasna waa arrin kale oo sugaysa macnaheedu weeyaan marka sababtaas way sababta ay u diideen marka waxaa jira qareen u doodaya dadkan oo markaa isagoo ka tirsan qareenada waddankaasi Belgium gaar ahaan booliiska isagoo hadlaya wuxuu yiri This is a very well motivated judgment. It's a judgment that xukunkani waa xukun kii habboonaa ee halkan ka dhacay xukunkani waxa uu taabanayaa dhaqanka dadkii soo weeraray Paris iyo Brusselsba inaynu ka dalahaan u sheegno in habdhaqankoodaasi uu yahay mid aan la aqbali karaynin isla markaana abaalkooduna uu yahay in iyaga la ciqaabo such behavior and that we punish them severely. kaasi wuxuu ahaa qareen Tom Pownis oo booliiska magaalada Brussels raggii wax ka soo gaareen u doodayay isaguna waxaa hadlay qareenka difaacaya Salah Abdisalaam oo magaciisa la yiraahdo Sven Mary waxa uu ka hadlay markaa inkastoo arrintan uu ku qanacsan yahay haddana uu la tashan doono ninkan isaga macmiilkiisa ah oo uu difaacayo Je suis convaincu de rien dans ce jugement, mais ça, je vais l'analyser à mon aise avec le client. waxa uu sheegay in inta badan isagu uu aaminsan yahay uu tixgelinayo go'aanka maxkamaddu ay riday iyo go'aanka xaakimka uu riday laakiin wuxuu sheegay inuu la kulmi doono Salah Abdisalaam inuu doonayo inuu arrintan ka qaato racfaan iyo in kale marka Axmed waxaad moodaa arrintu inay tahay arrin labada nin hadda xukunka maanta lagu riday haddana ay sugayso xukun kale oo ay dowladda waddankaasi Faransiiska iyadana u diyaarinayso ninkan Salah Abdisalaam la yiraahdo walaalkiis waxa uu ku dhintay meel shaah laga cabo ku taala magaalada Paris markii isagoo la sheegay in booliisku ay iska hor yimaadeen kadibna uu isqarxiyey Salah waa nin 28 jira waxa asalkiisu uu ka soo jeedaa waddankaasi Tunisia iyadoo ninkan kale wuxuu ka soo jeedaa waddanka Morocco laakiin ninkan la yiraahdo Sofiane Ayari ayaa isna wuxuu ka soo jeedaa waddanka Tunisia marka labadoodaba 20 sano oo xabsiya ayaa lagu xukumay aad iyo aad ay u mahadsantahay Mawlid waa tahay magaalada Brussels ee dalka Belgium waxaa berito ka furmaya shir caalami ah oo ay ka qayb galayaan midowga Yurub iyo qaramada midoobay iyo deeq-bixiyaal kale si kaalmo loogu ururiyo dadka ku dhibaataysan dalka Suuriya ee dagaaladu saameeyeen arrimaha shirkan waxaan mar sii horeysay ka wareystay agaasimaha hay'adda WFP ee qaramada midoobay u fadhiya dalka Suuriya Cabdiraxmaan Meygaag oo ku sugan caasimadda Dimashq shirkani waxa abaabulaya waa EU-da European Union-ka iyo UN-ta ujeedaduna waxay tahay si qaaraan loogu ururin lahaa hay'adaha samafalka ee adeega ka haya dalka gudihiisa waayo waxa aad moodaa in baahidu ay weli jirto dagaalkuna weli jiro dad fara badan ay barakaceen isla markaana loo baahan yahay in kaalmooyinka la siiyo ee bini'aadanimada la sii wado ilaa inta ay xaaladda siyaasadeed ee dalku ay hagaagayso marka maxaad ka filaysaan dhaqaale ahaan si aad howlaha bani'aadanimada uga sii wadaan Suuriya imisaad u baahan tihiin marka la isku daro hay'adeedan WFP-da anigu ka shaqeeyo waxa u baahan tahay 310 milyan oo dollar in ay u baahan tahay ilaa sanadka dhamaadkeeda sidoo kale hay'adeedu waxa ay siisaa kaalmo bini'aadanimo qaxooti fara badan oo ka qaxay Suuriya oo ku nool dalka Turkiga ku nool Lebanon ku nool Jordan iyo Egypt kaalmooyinkaas dadka qaxootiga loo fidinayo ee Suuriyaanka ee dalka jariska ku nool laftigoodu waxay hay'adeedu u baahan tahay 330 milyan oo dollarka Mareykanka marka la isku daro wixii anagu dalka gudaheeda u baahannahay iyo wixii hay'adaha xafiisyada ay ku leeyihiin dawladda darisku ay ka wadaan Suuriyaanka ka caawinayaan waxay isku noqonaysaa lacag dhan 640 milyan taasi ayaana gaarsiinaysa ilaa sanadka dhamaadkeeda dadkaas marka ama gudaha ha joogeen ama wadamada deriska ha joogeen maxaad siisaan oo ku caawintaan dalka Syria waxa lagu qiyaasay tirakoobkii ugu dambeeyay in ilaa
19 milyan ilaa 20 milyan oo Siiriyaani ay ku nool yihiin 19kaasi ama 20 milyan 13 milyan oo ka mid ihi waxay u baahan yihiin gargaar bini'aadanimo 6 milyan oo ka mid ihina waxay u baahan yihiin raashin degdega in la gaarsiiyo xafiiska iyaga WFP oo had iyo jeer isku dayayo inuu wax ka gaarsiiyo badankooga waxa kale oo jira ilaa 4 milyan oo ka mid ihi inay qaxootiyaal ku yihiin marka 17 qof oo ka mid ah dalka Suuriya ku nool waqtigan xaadirka lagu jiro ayaa waxay yihiin dad baahi ay hayso oo bini'aadanimo u baahan kaalmo bini'aadanimo marka dhibaatooyinkaas oo jira awgeed waxa loo baahan yahay hay'adaha samafalka ee UNWFP ay ka mid yihiin in ay gargaarka sii wadaan ilaa inta xal siyaasadeed laga gaarayo dhibaatada ka jirta Suuriya dhibaatadu marka xagee ugu badan tahay wadankii inta badan hadda waxa la yiraahdaa dawladda ayaa gacanta ku dhigtay mucaaradku weli meelo ay haystaan marka sidee u kala dhibaato badan yihiin dadku warun marka loo eego sanadkan oo la barbar dhigo 2013 iyo 2014 waxaad moodaa dawladdu inay samaysay horumar aad u ballaaran oo ay soo qabsatay dhulal aad u fara badan oo mucaaradka haysan laakiinse way jirtaa gobollo qaar gobol la yiraahdo Idlib oo xuduud la leh dalka Turkiga weli mucaaradka ayaa haysta qayb ka mid ah gobolka la yiraahdo Halab ama Aleppo qayb ka mid ah waxa haysta mucaaradka marka laga hadlayo koonfurta gobolada xuduudda la leh dalkaasi Urdunna waa Darca iyo Quneitra qayb ka mid ah weli mucaaradka haysta laakiin 14 gobol ayuu dalku ka kooban yahay majority-giisu waxay gacanta ugu jirtaa dawladda waxa intaasi dheer gobollo kale oo iyaga kurdidu ay haystaan sida gobolka la yiraahdo Qamishli Hasaka iyo Raqa oo gobol kale oo bariga hore ay xarunta u ahay nimankii falaagada ahaa ayaa waxay yihiin kuwa ay haystaan nimankani kurdiinta oo weli ay dawladda aan heshiis fiican ka dhaxaynin daba inta soo hadho dhan waxa gacanta ugu jirta dawladda taasina ayaana keenaysa in meelo fara badan oo aan awood u lahayn inaanu gaadhno sanadkii 2013kii iyo 14kii inaanu hadda awood u helnay inaanu raashin gaarsiino laakiin baahiyo sidaanu sheegnay wali waa aad bay u ballaaran tahay saan ku sheego sanad walba waxaan sameynaa taqyiim ama assessment aanu kaga baaraadagayno dhibaatooyinka bini'aadanimo ku jira dhibaato taasi ayaa keenaysa inaan ogaano wadciga nololeed ama bini'aadanimo ee ka jira dalka cabdiraxmaan meegaag agaasimaha WFP wadanka Suuriya ayuu ahaa waa hagaag markana waxaa la soo gaaray iyadoo saacadu haatan ku sii siqaysa 5:00 iyo 2 daqiiqo weliba 2:30 ayay ku sii socotaa qodobada wararka BBC-da ugu waaweyn aan mar kale ku noqdo Axmed Bader ra-iisul wasaarihii dalkaasi Armenia ayaa ku dhawaaqay inuu iska casilay xilka kadib markii 11 maalmood dibadbaxyo ay ku tilmaameen mucaaradka in looga soo horjeedo waxa ay ku tilmaameen in uu doonayay inuu awoodda dalkaasi marorsado bayaan uu soo saaray waxa uu ku sheegay inuu ku qaldanaa in uu qaato xilka ra-iisul wasaaraha kadib markii uu dhammaystay muddada xilka madaxweynenimada uuna fulin doono dalabka dibadbaxayaasha waxa ay iscasilaadiisa ku soo beegantay waxyar uun kadib markii xabsiga laga sii daayay hogaamiyaha mucaaradka ee dalkaasi dowladda dalka Iiraan ayaa waxay sheegtay inuusan jirin qorshe labaad oo ku saabsan heshiiska ay la galeen quwadaha waaweyn ee caalamka kadib markii madaxweyne Trump uu ku hanjabay in heshiiska uu ka bixi doono wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Iiraan Mohammad Javad Zarif ayaa barta Twitterka ku soo qoray in wadamada Yurub ee heshiiska saxiixay ay madaxweyne Trump ku qanciyaan in heshiiska uusan ka bixin hay-adda u dooda xuquuqul insaanka Human Rights Watch ayaa waxay sheegtay in howlgalka ka dhanka kooxaha mitidiinta ay ciidamada Masar ka wada lamadegaanka Sinai uu sababay in 400,000 oo qof oo rayid ah ay imika u baahan yihiin gargaar bini'aadanimo oo degdega in ka badan muddo 2 bilood ayaa waxaa goobtaasi lagu soo rogay xanibaado dhanka dhaqdhaqaaqa dadka iyo badeecooyinka ninka kaliya ee ka badbaaday dadkii looga shakisanaa weeraradii 2015 ka dhacay magaalada Paris Saalax Cabdisalaam ayaa lagu helay dambi ah isku day dil xilli uu doonayay inuu ka maagto in la qabto dalkaasi Belgium waxaa lagu xukumay 20 sano oo xariga
duqayn ka dhacday waqooyiga dalka yeman ayaa la sheegay inay ku dhinteen ugu yaraan 20 qof oo ka qaybgalaya xaflad aroosa. weerarka ayaa waxaa sidoo kale ku dhaawacmay 30 qof. xuutiyiintu waxay ku eedeeyeen in ay ka dambeeyaan isbahaysiga uu Sacuudiga hogaamiyo. ugu dambeynna wiil cusub ayaa ku soo biiray qoyska boqortooyada Ingiriiska, waxaana wiilkani dhashay xaaska amiirka leh dhaxaltooyada ee Amir Williams. war qoraal oo ka soo baxay qasriga boqortooyada ayaa lagu sheegay wiilka iyo hooyadiiba ay caafimaad qabaan. qodobadii warka ayaa intaasi naga dhanaan dib idin ku celiyo Axmed Cabdinuur. axmed badar mar kale wuu mahadsan yahay. markaan haddee bal sheekooyinka soo socda intaan u gelin mid ka duwan ayaan eegaynaa. haweeney ayaa waxaa lagu ganaaxay $500 oo. maxay ku mutaysantay? waa arrin dhex martay iyada iyo shirkadda dawladaha ee la yidhaahdo Delta Airlines. mawlid ayaa sheekadan soo aqriyey. mawlid. axmed waa mahadsan tahay. soomaalida waxay ku mahmaahdaa adigoo hooyan waayey ma laguu soo hoyday ama lagu soo hargalay. macnaheedu waxa weeye gabadhan waxaa la yidhahdaa Crystal Tadlock waxay ka safraysay magaalada Paris waxaana ku socotay waddanka Mareykanka. shirkadda diyuuradaha ee Delta Airlines ayay ku safraysay gabadhu. marka iyadoo diyaaradda inta waa safar dheer Mareykanka iyo Yurub marka la iskaga socdo, gabadhii ayaa waxaa dhacday qof ka mid a dadkii diyaaradda ayaa hadiyad wuxuu u siiyey tufaax markaa may soconin. waxay dareemaysay markay tagto magaalada ay u socotay Denver inay magaalo kale u sii gudubto. marka waxay tiri safarkaas kale armaad u dhigataa tufaaxaaga. boorsada ayay markaa gashatay. markii ay sidaa dhacday ay damacday inay u gudubto aeroboortkii kale oo diyaaraddii kale ay fuusho, ayaa waxaa qabsaday qolyahan migrationka ama qaybta canshuuraha kastamada la yidhaahdo. marka waa la baaray. markii la baaray waxaa laga helay boorsadeeda xabad tufaaxa. waxaa la tufaaxan waxaa la rab inaad sheegtay. sharciga Mareykanka wuxuu dhigayaa wax kasta oo fruit iyo qudaar oo kala haddii la soo gelinayo waddanka, qofka inuu intuu marsiiyo meel laga sheego la yidhahdo alaabtan baan wataa. marka waxaa la yidhi maadan sheegin, micnaheedu waxay tahay tufaaxan waddanka wax ka soo gelinaysa sharci darro, kontrabaan. $500 baa qoorta loo geliyey oo ganaaxa. hadda marka waxay taagan tahay Crystal Tadlock inay maxkamadda tagto oo lacag bixiso iyo inay lacagta iska bixiso. laba dara mid doora ayaa wili haysata. shirkadda diyuuradaha Delta Air waa la weydiiyey arrintii. waxaa la yidhi arrintan ka warrama idinkaa ka warqabeen. waxay yidhahdeen arrimaha shakhsiyaadka ka hadli mayno. arrintiina waxay noqotay arrin si weyn baraha bulshada looga hadlayo, gaar ahaan Twitterka iyo Facebooka. tufaaxii gabadha dhibka ka soo gaarayna runtii waxay hadda maraysaa inay lacagtaa bixiso ama ay maxkamad ka dacwato. waxaan arkay barnaamijyo telefishinada laga sii daayo oo weliba qaar laga soo sameeyo dhinacaasi Australia. eerbooradaas dad waxaa arkaysaa raashin badanba wata. marka lama ogola, waa lagu qabtaa. qaara cunto badan oo isla malaha waaba iibin doonaan ayay wataan. waxaaba iga sadarnayd qolyaha weliba eeshiidaas xasharaad bay wataan qaarkood. markaas Australiana waxaasoo dhan waxay ka qaadaa sas bay ka qabtaa. waa runta sheekooyinkaasina way jiraan. waxay moodayaan inaa xashiish iyo wax kale iyo muqaadaraad iyo inaa meesha inay kuugu jiraan. waa tahay. markana bal hadde xaggaas iyo dalka Yemen sidaad warka ku maqlayseen, xaflad aroosa ayaa duqayn ay ku dhacday. ilaa ugu yaraan 20 qof ayaa la sheegay in ay halkaasi ku dhinteen. waqooyiga dalka Yemen ayay arrintaasi ka dhacday. kooxaha gurmadka ayaa sheegay in sidoo kale 30 qof oo kale iyaguna ku dhaawacmeen. waxaa kooxaha xuutiyiinta ee dhinacaasi jooga ay arrintan ku eedeeyeen isbahaysiga Sacuudigu horseedka ka yahay taageeraya dowladda Yemen. warkan waxaa inoo haya Cabdiraxmaan Cadow. dadka ku dhintay weerarkaasi duqaynta diyaaradda badankood waa haween iyo carruur oo isugu yimid xaflad aroos oo degmada Banu Qays ka dhacaysay, sida uu sheegay Khalid Al-Nadri, madaxa xafiiska ee degmada waqooyiga galbeed ee gobolka Xajaa. madaxa isbitaalka Al-Jamhuuri ee Xajaa oo taleefanka ugu warramay Reuters ayaa wuxuu u sheegay in isbitaalka la keenay 40 meyd ah, intooda badan jirkooda uu go'an yahay. 46 qofna waa dhaawac oo ay ku jiraan 30 carruur ah duqaynta diyaaradda ee lala beegsaday xafladda arooska. 30 ka mid ah dadka dhaawaca ah waa carruur, iyagoo ay qaarkood yihiin garabaati oo ay soo gaadheen dhaawacyo aad u culus. sawirro laga qaaday goobta ay duqaynta ka dhacday ayaa waxaa ka muuqda dad dhulka daadsan.
dad jirkoodu googo'ay meydad ay mar hore nafta ka baxday iyo kuwo xanuun la ooynaya afhayeenka wasaaradda caafimaadka cabdulxakiim alkhalaan wuxuu isna sheegay gawaarida gurmadka degdega ah oo goobta gaadhi lahaa in ay gaadhi waayeen cabsi ay ka qabaan in weerar kale oo diyaaradeed halkaasi uu ka dhaco xulafada yeman dagaalka ka wada ee reer galbeedka gacansaarka lale waxay dagaal ka wadaan dalka yeman iyaga oo sheegay in ay dagaal kula jiraan xuutiyiinta telefishinka almasiira oo ay leeyihiin xuutiyiinta hubaysan waxay twitterkooda ku sheegeen inay weerarka ku dhinteen 33 qof 55 kalena ay ku dhaawacmeen dagaalka yeman waxaa ku dhintay 10,000 oo qof 2 milyan oo qofna ay qaxeen dalkana uu horseeday gaajo iyo macluul ay dad badan ku naf waayeen sida ay sheegtay jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa mahadsanid cabdiraxmaan waa tahay markana xaggaas iyo iiraan dowladda iiraan waxay bangiyadeeda iyo hay-adaheeda maaliyadda ka mamnuucday isticmaalka lacag elektronig ah oo ay ku jirto nooca loo yaqaano bitcoin bangiga dhexe ee dalka iiraan ayaa waxa uu sheegay in go'aankaas la qaatay sababtuna ay tahay walaac ay ka qabaan in lacagahan elektroniga ah loo isticmaali karo in lacaga loo raadgado islamarkaana argagixiso lagu maalgeliyo warkan waxaa inoo haya maxamed maxamuud cabdi oo haatan stuudiyaha ila fadhiya lacagahan loo yaqaano cryptocurrency ama lacagahan digitalka bitcoinka ayaa ka mid ah laakiin waa ay badan yihiin waxaa muuqata dowladda in ay go-aan ku gaartay in ay mamnuucdo sababa la xiriira in ay ka baqayso in lacagtaasi loo isticmaalo lacag qaanuunka khilaafsan ama si akhlaaqda khilaafsan inta lagu tabcay laisu gudbiyo meelaha laga mamnuucayna waxaa weeye bangiyada hay-adaha xawilaadda iyo dhammaan hay-adaha gacansaarka leh bangiga dhexe ee dowladda marka waxaa laleeyahay dadka shakhsiyaadka ah haddii ay doonayaan inay ka ganacsadaan ama ku sameeyaan ayagay u taallaa laakiin dowladda iyo kaydkeeda bangigeeda dhexe iyo bangiyada la tacaamula looma ogola maxaa lacagtan lagu diidaya lacagtan marka ugu horeysa waxa weeye lacag electroniga soomaalidu lacag electronic way taqaanaa oo taaj iyo mataqaanaa dahabshiil iyo way isticmaalaan waxa weeye hay-addii lacagta iskale inta turtida ayaa lacagta telefonka lagu guraya meelka cid u geedato waa u tuuraysaa waxaas waa yaqaanaa soomaalida laakiin levelkan hadda laga hadlayo ama heerkan hadda laga hadlayo waa heer aad iyo aad iyo aad u miriqsan weye waxa weeye cid mas-uul ka ah oo loo sheegan karo ama la dabageli karo ama dhex geli karto ma jirto ama dowlad ha noqoto ama dad gaara ha noqdaan waxa weeye nidaam la abuuray oo digitaala oo lacago fara badan lagu isticmaalayo saasay tahay cid xukunta iyo cid ka dambaysa male haddii doolarka oo kale aad wax ku iibsato ama doolar aad sarifato waa taqaanaa ciddi iskale maraykanka iskale haddaa bank wax ku safrato britain ba iskale laakiin bitcoino waxa weeye qoladan lacagtii way kaa qaadanayaan waxayna kugu bedelayaan bitcoin bay kugu bedelayaan bitcoinka waxbaa ku iibsan kartaa waxbaa ku samayn kartaa laakiin waxa ay iiraaniyiinta ka cararayaan waxa weeye wadankii dhaqaale xumo xoog ayaa jirta in lacag fara badan oo wadanku leeyahay si qaanuunka khilaafsan banaanka loogu bixiyo waxaa kaloo ayadana laga baqayaa oo laleeyahay dowladda laftirkeeda waxay isku dayeysaa inay abuurto sidii wadanka venezuela oo kale mid ay ayada leedahay bitcoin ay ayada leedahay oo dadku ay isticmaali karaan laakiin waxa weeye teknolojiyadan casriga waxaa weeye bitcoinka noocyo fara badan ayuu leeyahay qaar fara badan ayaa dadku hadda waxay u arkaan weliba kambaniyaasha waaweyn iyo shirkadaha waaweyn mid gaaray isha ku hayaan baa jira waxaa layidhaha ribl sababta isha loogu hayo waxa weeye kuwan kale cid ka dambaysa ma jirto laakiin nimankii ugu lacagta badnaa adduunka ayaa ribl hadda waxay door bidayaan in ay mataqaanaa galaan haddii ayaga ay galaan dadkani waxay leeyihiin hantima guurtaa daaray leeyihiin kambariyay leeyihiin shirkaday leeyihiin oo meel la dabagalay helaysaa laakiin kuwan kale sida bitcoinka kale ama kuwa kaloo jira cid hadda loo aanayn karo ma jirto xataa bitcoinka ninkii asaasay muran baa ka taagan cidduu yahay haddii cid damacdo way akhrin kartaa aad iyo aad ayaad umahadsantahay kooxda xuquuqda aadanaha ee human rights watch waxa ay sheegtay in howlgal ciidamada waddanka masar ay ku qaadeen waqooyiga waddankaas gaar ahaan deegaanka sinai uu dhaliyey in dad ka badan 400 oo kun oo rayida ay gaajo iyo dhibaatooyin kale oo bani aadamnimo soo food saaraan waxaa la sheegay in markaasi
muddo 2 bilood ah dadkaasi xayiraado ay saarnaayeen oo dhaqdhaqaaqa alaabta iyo dadka halkaasi gelaya ama ka baxaya xayiraado ay saarnaayeen dadka halkaasi deganna waxa ay u dulqaadanayeen oo haatan gabaabsi ka maraya cunto yari iyo daawo la'aan iyo gaaskii ay wax ku karsanayeen iyo waxyaabo kale oo daruuri ah. Faarax Lamaane ayaa sheekadan noo haya. howlgallada masar ee dhanka ka ah koox gacansaar la leh dowladda islaamiga ee waqooyiga Sinai ayaa sida ay sheegtay hay-adda Human Rights Watch waxaa khatar ay ku hayaan in dhibaato xagga bini'aadminimada ah ay sababaan. duulaanka oo la qaaday bishii Febraayo 9keedii ayaa hay-adda oo fadhigeedu uu yahay New York waxa ay sheegtay in uu baday 420,000 oo qof oo ku nool 4 magaalo oo ku yaalla waqooyiga bari ee dalka baahi gargaar bini'aadminimo oo degdeg ah. warbixin ay soo saartay hay-adda ayaa waxa ay ku sheegtay in mashaakilka dadkaas haystaa ay ku jiraan xayiraado adag oo lagu soo rogay dhaqdhaqaaqa dadka iyo badeecadaha ee waqooyiga Sinai. hay-addu waxa ay sheegtay in dadka deegaanku ay ka cabanayaan hoos u dhac xoog leh oo ku yimid raashinka, dawada, gaaska cunnada lagu karsado iyo badeecadaha kale ee muhiimka ah. maamulayaasha oo ololaha ka socda halkaa u bixiyey Sinai 2018 waxaa kaloo ay mamnuuceen shidaalka gaadiidka waxaana sida warbixintu ay sheegayso ay gooyeen isgaarsiinta. waayahay markana aan eegno wararkii ciyaaraha kuwoodii ugu waaweynaa iyadoo ay jiraan ciyaaro runtii aad iyo aad xiise u leh gaar ahaan FA Cup-ka oo ciyaaro wacdiro leh ay dhaceen iyadoo ay isku soo hareen kooxaha Manchester United iyo Chelsea oo markaa iyagoo finalka isku arki doona. waxaanu sidoo kale eegi doonaa ciyaaryahanka Mohamed Salah oo ku guuleystay laacibka Premier League Champions League-na waynu eegi doonaa xalay wacdarihii ku dhacay Juventus oo Napoli ay gurigooda ku garaacdeen waynu ka hadli doonaa Julio Barcelona oo ayna ku guuleysatay koobka boqorka ee waddankaasi Spain. hase haatee waxaynu ka hormaraynaa ciyaaryahanka Mohamed Salah ee u dhashay waddanka Masar isla markaasna kooxda Liverpool u ciyaara ayaa xalay ku guuleystay abaalmarinta laacibka Premier League. And the winner, Players Player of the Year 2018 is Mohamed Salah of Liverpool and Egypt. weeraryahanka 25 jirka ee kooxda Liverpool afka hore ugu ciyaara iyo qaranka waddankaasi Masar Mohamed Salah ayaa ku guuleystay abaalmarinta sanadka 2017 iyo 18 ee ciyaaryahanka ama laacibka Premier League. waxaana uu abaalmarintani ka qaaday ciyaaryahanka kooxda Manchester City u ciyaara Kevin De Bruyne, weeraryahanka kooxda Tottenham Harry Kane, laacibka kooxda Manchester City Leroy Sane, isla ciyaaryahanka City u ciyaara David Silva iyo goolhayaha kooxda Manchester United David De Gea. abaalmarintan sanadka 2017 iyo 18 ayuu Mohamed Salah ku mutaystay kadib markii gool dhalintiisu ay caawisay kooxda Liverpool isagoo dhaliyay 31 gool 33 jeer oo Premier League uu ciyaaray kooxda Liverpool. tababaraha kooxda Liverpool Johan Klopp ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay in uu u noqdo tababare Mohamed Salah oo uu sheegay in uu yahay ciyaartoy muhiim ah. weeraryahanka reer Masar xafladda xalay ka dhacday magaalada London oo abaalmarinta lagu guddoonsiinayay hadal uu ka jeediyey waxa uu sheegay in uu aad ugu faraxsan yahay isla markaasna ay u tahay sharaf in uu ku guuleysto abaalmarintan. Thank you very much. Good evening everyone. It's an honor to be nominated for the Player of the Year in the Premier League, you know, and especially because it's voted by the players. So I'm very happy and very proud to win it. Mohamed Salah oo 34 milyan oo ganiga sterlinka loogu soo gartay kooxda Roma ayaa waxa sidoo kale uu noqonayaa ciyaaryahankii shanaad ee 40 gool ka qayb qaata Premier League. waa 31 gool oo dhaliyay iyo 9 gool oo uu ku caawiyay kooxdiisa. dadka ka faallooda arrimaha ciyaaraha ayaa si weyn u amaanay kuna tilmaamay inuu ahaa ciyaartoy la soo baxay wacdaro cusub. Salah oo kooxda Chelsea ay kol hore soo gadatay ayaan wacdaro weyn ka dhigin garoonka Stamford Bridge ee ku yaalla galbeedka magaalada London, laakiin markii uu gudbay kooxda Roma ayuu dhaqaaqyo sameeyay taasi oo sababtay in kooxda Liverpool ay soo gadato. waxaana dad badan markaasi ay shaki ka qabeen laacibnimadiisa iyo inuu Premier League ka noqon karo xidig, laakiin taasi Mohamed Salah been ayuu yiri oo waxa uu sameeyay
wax ciyaartoy badan aanay awoodi karin abaalmarintii xalayna ciyaaryahanka Leroy Sane ee kooxda Manchester City u ciyaara una dhashay waddankaasi Jarmalka ayaa ku guuleystay abaalmarinta ciyaaryahanka da'da yar halka dhinaca gabdhahana ay ku guuleysatay Fran Kirby oo kooxda Chelsea u ciyaarta waayahay bal maxamed saalax inta aynu kaga gudubno dhinaca Premier League waa dhammaad oo koobkii waxaynu ognahay in kooxda Man City ay horay u qaadatay laakiin ciyaaro xiise leh ayaa shalay dhacay waxaana ka mid ahaa kulamo ka tirsan Premier League ayaa shalay dhacay waxaana kulamadaasi ka mid ahaa kooxda Arsenal oo garoonkeeda Emirates Stadium ku qaabishay kooxda West Ham ee ka dhisan bariga magaalada London ciyaarta ayaa qaybtii hore la isku mari waayay ever inkastoo Arsenal ay ku gacan sareysay kubada haysashada iyo weerarka laakiin waxa muuqatay in kooxda Arsenal ay jabin weyday daafaca kooxda West Ham daqiiqadii 51 markii laga soo laabtay nasiinada ayaa ciyaaryahanka reer Spain ee daafaca ugu ciyaara kooxda Arsenal Neco Monreal waxa uu si xaraga leh shabaqa ugu hubsaday gool isagoo ciyaartana ka dhigay 1-0 Xhaka away swinging corner volley is in from Monreal beautifully struck on the left foot that's much more like it for Arsene Wenger 3 home games to go laakiin daqiiqadii 64 ayaa ciyaaryahanka Mark Arnautovic oo kooxda West Ham xagga hore uga ciyaara waxa uu ciyaarta ka dhigay 1-1 kadib markii kubad qurux badan uu goosha u dabamariyay ciyaaryahanka David Spina oo goolhayaha Arsenal ahaa Lanzini onto Arnautovic onside and scores with an absolute rocket past David Spina clinical finish from Marco Arnautovic to make it Arsenal 1 West Ham 1 Tobra kooxda Arsenal Arsene Wenger ayaa shalay binjiga geliyay weeraryahankii uga ciyaara kooxdiisa afka hore Pierre-Emerick Aubameyang kaasi oo ciyaarta la soo geliyay goor dambe daqiiqadii 82 ciyaaryahanka Aaron Ramsey ayaa Arsenal siiyay hoggaanka ciyaarta kadib markii uu dhaliyay goor xaraga leh laakiin West Ham xaaladdu waxa ay ku sii xumaatay daqiiqadii 85 markaas uu ciyaaryahanka Lacazette uu ciyaarta ka dhigay 3-1 West Ham wixii intaa ka dambeeyay waa isweyday oo waxay noqotay xaaladeedu mid aad iyo aad u adag daqiiqad iyadoo ka dhimantay ciyaarta ayaa Lacazette mar kale waxa uu shabaqa ku hubsaday gool xaraga leh isagoo ciyaartiina ka dhigay 4-1 ciyaaraha kale ee dhacayna waxaa ka mid ah kooxda Stoke City oo garoonkeeda 3-6 ku soo dhaweysay kooxda Burnley Stoke ciyaaryahanka Nidia ayaa daqiiqadii 11aad waxa uu siiyay hoggaanka ciyaarta laakiin Ashley Barnes ayaa daqiiqadii 62aad waxa uu markaasi gool ka dhaliyay kooxda Stoke isagoo ciyaartana ka dhigay 1-1 ciyaarta kale ee shalay dhacdana waxay dhex martay kooxaha Manchester City iyo Swansea City Man City oo iyadoo koobka qaaday uma aanay oolin waxay ku ciyaarto oo aan ka ahayn inay dhibcaha ku roosato ciyaartoydooduna ay markaasi goolasha badsadaan daqiiqadii 12aad ciyaaryahanka reer Spain David Silva ayaa ciyaarta hoggaankeeda waxa uu siiyay kooxda martida loo ahaa ee Man City pulls it back David Silva first goal for the champions David Silva left footed isla 4 daqiiqo kadib waa daqiiqadii 16aad Raheem Sterling ayaa ciyaarta ka dhigay 2-1 iyadoo qaybtii hore ciyaartana lagu kala nastay 2-1 oo ku hogaaminayso kooxda Manchester City markii la isku soo laabtay Swansea waxa isku dayday inay weerarto kooxda Man City laakiin Man City oo haystay ciyaartoy laacibiina isla markaasna koobka qaaday kalsooni badanna ka muuqato ayaa daqiiqadii 54aad ciyaaryahanka reer Virginia Kevin De Bruyne waxa uu ciyaarta ka dhigay 3-1 64 markii ay maraysay kooxda Swansea xaaladda waxa ku sii xumeeyay markii laga dhigay gool kulaad hasaate ciyaaryahanka reer Brazil Gabriel Jesus ayaa rigoorahaasi qasaariyay laakiin ciyaaryahanka Bernardo Silva ayaa kubadda ka faa'iideystay oo goolkaasi u dhaliyay kooxda Manchester City ciyaartana wuxuu ka dhigay 4-1 Jesus mar kale ayuu gool kala dhaliyay kadib markii kubad xaraga leh u soo dhigay ciyaaryahanka Yahya Toure ciyaartiina waxay ku dhamaatay 5-1 waxay ahayd runtii ciyaar aad u xiiso u leh Yahya Toure patiently looks over the top there is Jesus flash stays down 5-0 Jesus with the fifth and maybe the final goal of the afternoon waayahay bal markan aynu eegno FA Cup-ka oo shalay Chelsea ay kooxda Southampton ka badisay Axmed Cabdinuur Axmedow waayahay waynu ognahay Jose Mourinho hadda United ayuu hayaa waa ninkan
chelsea inta badan koobabka la qaaday oo macalinka ah waxaa la leeyahay ciyaarta bisha dambe dhicin doonta labada kooxood isku dhaarsan yihiin haye aad iyo aad isugu dhaarsan yihiin weliba Mourinho wuxuu u sii dhaarsan yahay kooxdiisii hore haye marka horta dad badan waa sidii ay rabeen in labadaan isku soo baxaan si fiican Mourinho marka wax kale baryahan ma hayo aad iyo aad horyaalkii waa kaas laga qaaday inkastoo meel fiican uu joogo oo kaalinta labaad uu ku jiro haddana taageerayaashii waa dhib bateen oo adiga arkay Arsene Wenger waa qaarijiyeen siday ugu qaylinayeen waa kaa ka tegey marka isaga qudhiisa hadduu wax keeni waayo qayladii ku bilaabanaysa marka wuxuu rabaa inuu wax sanadkan kor u qaado marka koobkani muhiim ayuu u yahay Antonio Conte oo isna Chelsea ahna isna waxba ma hayo afartii sare xataa waa ka haray arrinta la yaabka laakiin waxay tahay Antonio Conte taageerayaasha Chelsea ma ku cafin doonaan wuxuu leeyahay ciyaarta ka dhici doonta 19 bisha May garoonka Wembley ee finalka ah Chelsea rajo fiican ma leh oo anagu waxaan noqonaynaa kooxda labaad oo tan koowaad oo koobka laga baqay inay qaado waa United hadalkaas inuu yiraahdo maxaa see loo oran karaa ninkan waa quustay kooxdan inuu ka tago daqiiqad kasta diyaar u yahay ninka meesha iska lahayna waa taqaanaa sida macallimiinta loo diro Abrahamovich marka wax kastoo ka hadli karaa Chelsea bariyahan runtii xaaladoodu ma fiicna ciyaartooy ahaan ma wada xuma rag badan wuu joogaa meesha laakiin ma aqaan nasiibkii ka dhamaaday meel kala maaragtay waa kooxdii sanadkii hore koobka qaaday haddana afartii sare soo geli laadahay shanaaday maraysa waayo axmedow arinta xiisaha leh waxaa soo hadal qaaday Arsene Wenger saakay jaraa'idka markaan eegay dhammaantood bogga ugu dambeeya sportska lagaga faalloodo kulligood waxay ka hadlayeen hadalkan Arsene Wenger uu yiri waxaa igu qasbay inaan iscasilo taageerayaasha haye taageerayaasha meel walba laga joogi laay waxaan ku sheegaya hadda waxaan ka hadlaynay Manchester City oo horyaalkii qaaday marba waxaa ka badisay Liverpool haddana Manchester United ka badisay waxay bilaabeen qaarkood Guardiola ha baxo waa laba ciyaarood hadde ninkii sanadka oo dhan guusha laga badin waayey waxay ku leeyihiin ha baxo marka taageerayaashan malaha qaarkood anuu ka dhabba ma ahana isiraado iska ciyaaraya aad iyo aad axmedow adoo raalliga wayna la soconaa Premier League City baa qaaday Spain Barcelona ayaaba dhibco badan ku hogaaminaysa Bayern Munich 20 dhibcood iyo ka badan bay ku qaaday Liga Fransiiska PSG baa iska qaaday meesha xiisaha leh waxa weeye Serie A Talyaaniga xalay wacdar ayaa dhacay ku jabay xalay si kala ma taqaaniin xalay waxa wixii dhaw caadi ma ahayn Juventus horta 4 dhibcood markii inta ciyaarta bilaaban ayay ka horeysay Napoli laakiin wuxuu ahaa wacdaruhu xalay ciyaartii waa la ismari waayay iyadoo 90 daqiiqo eber ah ayaa waxa heshay koorno kooxdii Napoli ciyaaryahan Afrika ka soo jeeda Kalobay la yiraahdo ayaa teersan intuu cirkaas galay shabaqii ku hubsaday Juventus hal dhibic oo kaliya ayaa hadda hogaanka ku haysaa waxaa kaaga daran Sabtida waxay la ciyaari doontaa Inter Milan oo waliba garoonka San Siro tagaysa Juventus micnaheedu waxay tahay hadii laga badiyo Juventus koobka waxa qaadanaysa Napoli arrinta marka xiisaha waxa weeye koobka Yurub oo dhan wadamadii la liigay wixii dhamaa Spanish maxaa la oran jiray Premier League dhibco badan baa lagu qaatay Talyaaniga laakiin midda ka taagan waxa la ciyaarihii xolay soo celis xal aan waan daawanay ciyaarta runtii aad baan runtii uga helay kubadda sidii la isku dhiibay kubadda haysashada Juventus xalay ciyaar isu dhigantay ahayd runtii 90 daqiiqo markaa fiiriso ciyaar labada kooxood ay isu dhigmaan ayay ahayd goolkan aad sheegtayna kubad madax lagu dhaliyo oo ka qurux badan anu maba xasuusto waliba ninka intuu booday ya hawadaas intuu galay waxaad moodaysaa inuu duulay ayuu maaragtay madax wuxuu ku dhuftay lugta ka xoog badan marka waxaan maleynayaa taariikhda inuu Talyaaniga meel weyn ka geli doono siiba Serie A Napoli ma aadi Buffon xataa markay ciyaartu dhamaatay goolhayihii uu ka dhaliyay Buffon intuu iibid uu gacan qaaday hadda ku darso runta uu gacan qaaday waan arkay ku darso garoonkan
yuventus ay leedahay weligeed napoli kuma badin marka inay xalay guul meesha kala tagaan ayaa wax weyn waana talyaaniga waa taqaanayo koonfur iyo waqooyi kala weeyo waa siro la riixa oo napoli waa tan riixo oo waxa la yiraahdaa wadankiina dad shaqaysta maaha warshado badan ma lihidiin dadkiina waxay ku nooshiin cayrtaad ku nooshiin xoogaa dhinacaas kore oo Turin iyo Roma iyo ayaga talyaaniga de lacagta hayso warshadaha liqaniyiinta weeye moogta marka xifaaltan kalena wuu jiray oo runtii u dhaxaysay waa yahay iyo taariikhdaas hore meeshan inaan wiligeed ku badin waxaas oo dhan lagu xisaabtamay aad iyo aad ciyaarihii kale dhacayna waxaa ka mid ahaa Lazio oo Sampdoria 4-1 ku garaacday Cagliari Bologna 1-1 ku kala baxeen Torino Atalanta ayaan tii gurigeeda geystay 2-1 kaga soo badisay Udinese iyo Crotone 2-1 ayaa waxa ku badisay Crotone laba finataas Giova iyo Interna waxay ku kala baxeen 2-1 marka ciyaarta xiisaha waxa weeye Sabtida ayuu eegi doonaa Axmed aad baad u mahadsantahay waa hagaag intaas ayaan barnaamijka waqti u helnay maxamed maxamuud cadde ayaa isku soo dubarday dib waxaan u kulmi doonaa caawa 9 fiidnimo Afrikada bari markay tahay intaas ka horeysa dhammaanteen waxaan idinku dhaafeynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh